Usmaan Salaad Daahir wax badan ayuu ii qabtay guri kiruu iga dhiibi jiray dhul ayuu ii iibiyay wallan wuxuu iga qaadan markii oo afka la furo inuu ii dhisi doono dhulkaas ummadda ii dhaxgali doono. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta lagu qabtay kulan ballaaran oo lagu baroordiiqayay Allah u naxariistay Usmaan Salaad Daahir oo caan ku ahaa magaca atooraha badda liido. isku imaantikan waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqameed waxgarad xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ehelka marxuumka iyo qaar ka mid ah dadkii uu caawin jiray waxaana dhammaantoodba isku raaceen in marxuumku uu ahaa shakhsi ku sifeysna caawinta dadka danyarta inaan dhaho Allah u naxariisto inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun walaalkeen Allah u naxariisto qabrigiisana Allah u waasiciyo gadaashiisana ilaahayna ma fidneeyo. waxaan iskugu nimiday waa baroor diiqdan walaalkeen dhintay marka ilaahay samiri iman Allah naga siiyo qaas ahaan qoyska uu ka soo jeeday rur ahaantii aniga haddaan iska soo qaado atooraha badda ninkan hadda magaciisa Cismaan uma aqoon aniga atooraha bisaan uqeen baddaasaan saaxiib ku ahayn filmadan iyo telefishinkaas iyo muuqaaladaas iyaan ka fiiri jiray samafalka uu samaynayo iyo waxa uu qaban jiray iyo ummadda uu caawi jiray asagoo dhinacna ciidanka oo dalka difaacayay dhinacna ummadda ka kaalmeynayay haddana wuxuu aad bandhig uu samay jiray dadka Soomaalida ee qamiis jamcaha yimaada baddaas oo mataqaanaa wuxuu tusi jiray Soomaalnimada waxay tahay waxaan ka mid ahay bulshada Soomaaliyeed oo gaariga saaran aanan shaqaysan karin aanan awoodin maanta inay wax qabsadaan waxaan qabsan karno wal alxamdulillah ilaah ayaa mahad iskale. Usmaan Salaad Daahir wax badan ayuu ii qabtay guri kiruu iga dhiibi jiray dhul ayuu ii iibiyay wallan wuxuu iga qaadan markii oo afka la furo inuu ii dhisi doono dhulkaas ummadda ii dhaxgali doono. maanta waa la waayay alxamdulillah ilaah xaqiisa laga waayay maasha Allah alxamdulillah ilaah mahad iskale. aad iyo aad habeenkii uu geeriyoonayay bishii 28 ay ahayd bishii muslimkan ay ahayd 27. si walba ha noqotee Usmaan Salaad Daahir oo loo yaqaanay atooraha badda ayaa waxaa la dilay 28 bishii aynu ka soo gudubnay waxaana dilkiisa lagu eedeeyay wiil ay saaxiibo ahaayeen.